السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وذا السلام يا بلشة ذا إلهي رب بركيو. إلهي وحون هاي نقبته. إلهي وحون أكثر هاي فرو. إلهي قلبي قلوبته هاي سوتش ديو. أدبرني السلام يا. ما أنت وحنا وين يركض هذلو ربعه. ما أنت ربعه يجي يستموت. reer burco waa idin salaamay horta dhammaantiin idinkoo burca baan idin salaamaya dhammaan soomaalidana waan salaamaya reer burco laba kala daaye inaad tadan gobolkii raggaanuna iyo inaad murantaan gobolkii murankaanu idiin bixinaynaa hadda haddii wixii ka dambeeya burco waa magaalo qiimo badan waa magaalo qaali ah waa magaalo ay ku noolaan jireen raggii halgamaaga oo dhan ka soo baxeen madaxweynayaasha Somaliland madaxweynayaashiidu daahir riyaale mooyaane intuu kala burcay ka tin Ibrahim Siilaanyo Cabdiraxmaan Somay haadee reer burco ah Cabdiraxmaan Allahu naxariisto intii dhimatay Muuse bixiyo riyaale mooyaane saddexda kale reer burcay ahaayeen kuwa kale reer burcaan ku wadnaa laakiin waxaad moodaa inaad reer burco fasaqaysaan fasaq baa idinku dhex jira in madaxyaalow horta laba kala daaye aniga wayga waana wayga talo inaan maratan waa israacnay burco waa midowday burco walaalowday burco ku soo lugaymaysaan inaad tidhaahdaan مرات الله ما يرمى نيانا صدق ما نيانا بس لما مدحونا نصوينا إلى تراهدان والما ريلو كذا داية تهدبا ملو نوها جاي ملو نجوها جاي ملون نجوها جاي إن رنتي أنا يعني ويتو عندك استماع المراد ما المراد وأنا اللي بحورته عاد كن إنك أنتي سوالة سيا لكن هبين كده ويتو I don't know هو على سنة inkastoo markaan sheekadii baaray la yiri maayarka ma ahayn dad kale oo caraysnaa horta cara weyn baa ku jirtay laakiin adeerka waxaan onayaa in adeer mar haddii aad ka degtay kursigii oo aad hanaysay oo ka tagtay ka daba hadalkiisa fara ka qaad magaalada intaa dhisteen haddii loo cagaf la mariyo ha ka hadlin waayo qof waliba wuxuu leeyahay system uu shaqadiisa u guto dadkana haddii aan shaqadooda loo deynin oo aan qofka shaqadiisa loo deynin runtii kafiyus baa dhaca dib baa dhaca iska horimaad baa dhaca marka waxa qurux badan haddii dhir la googooyo iyo haddii laami la burburiyo iyo wax kasta oo la sameeyaba adigu inaad fara ka qaadid way halka boosbada kaagama banaa oo reer waad ka tagtay wixii aad qabatay hore u qabatayna waa la garanayaa oo waa lagu hayaa oo shacabka dee burcaa ku ogo waa ku garanaya wixii kale aad qabana maba aad qaban marka dhirtu mashquulkeeda maba ahaba in iska deyso ayaa qurux badan taasaan dhiga adeeg ku leeyahay maayarka kale magaciisa ma qar hero miyale saharo ma garanayaan ka waa in dhalinyaro horta dhalinyaro markaynu wuxuu dhiibanay ogaada oo de maskaxdeena iyo maskaxdooda waa kala labo Soomaalida waxa ku baahan inta nin dhalinyaro intuu tala ka boodo intuu geed ka boodo tala ka booda dhalinyaradu system bay wuxuu aragtaa inay wax qurxisay doonaysaa inay wax kala bedeshay doonaysaa inay wax hagaajisay doonaysaa inay daryeelaan iyadoo system yar oo aynaan inagu dadkii waaweynaa ahayn ayay wadataa haddana waxa ku jira wax la yiraahdo de nin iyo dhalinyaro mas'uul loo dhiyo mas'uul baa tahay oo de waa halka hagaajiyo waxaan sameeyo wax caynkaasi way ku jiraan marka isaga waxaan la maayarka cusub waxaan lahaa marka dadka wax la yiri waayeel hortooda caana loogu barxaa markaad wax qabanaysid magaaladiina waa magaalo cajiib ah oo aad u saxmad badan burco markaad wax qabanaysid maayar adiguna gudcur ha gudine
waxa la yidhi xalaal duhur baa la qashaaye intaad maalintii timaadid oo warka kasii daysid oo halkaasaan waxaa ka bedelaynaa oo waxaasaanu qabanayna si dadkani u qanco wixii aad qabanaysid si wacan ugu sheeg ayaan hore waxaan arkay isagoo shir jaraa'id meel uu ka hadlayay oo shir ahayd uu yacnaa ka cabanayay in lagu kacsan yahay calashaan la fananayo yacnaa wixiisa laga soo horjeedo shaqooyinkiisa laga soo horjeedo oo kale maxaa la yidhaha talow I don't know Soomaaliga waa ilaa malaha oo uu leeyahay haddaan la wada shaqayn haddaan wax la wada qaban haddii aanan dee wax qabsan karaynin yacnaa uu saas u hadlayo hadalka dee qofka weyn anigu dee qof weyn baan waan fahmayay uu ka hadlayo in yacnaha ama dad lagu kiciyo xamaasad lagu kicinayo ama wax uu ka hadlayo waan dareemayay hadalkiisaan ka dareemayay markaa waxaa qurux badan waryaarahan reer Somaliland dhammaantiinba marka nin shaqo idiin hayo in maadeerayaalow u daayo xaasidnimada ka daaya u daaya qofka shaqadan uu idiin hayo daaya isagoo hadduu xumeeyo shacabka arkaya shacabku ha ka hadlo hadduu wax wanaajiyona shacabka amaanaya horta linaga ilbaxsan oo reer Hargeysa inaga ilbaxsan maayarkii Hargeysa wadooyin furiyo waxbuu sameynayay wax ka daba qaylinaya wax ka daba juuqaya toona because dadka u baahan wax qabadkan dadka u baahan laakiin haddii far leydin taago waxtaa qaylisaan waxa macna ma sameynayo qofna wax ma qaban karayo kan wax ma qaban karayo ka dambeeyo wax ma qaban karayo haddaynu kii walba waan ogaa xitaa muraadkaasi markuu haystay ummadda waan la yaabi jiray dadkan maxaa ka waalan maxaa ka khaldan baan oran jiray warma waxa u daaya oo cashuurta bixiya wax bixin maayo waddankan halay qurxiyo socon mayso dee waxna aan qalano midiyaan aan qarsano in maad reer socon mayso rumaadii sheegayay ma soconayso waxan waa la wada qabsi shacabku waa inuu cashuurta bixiyaa waa inuu isagu wixii ka xun u soo sheegaa dawladda waa inuu yahay waxaasaan naga xun maayir halkaa noo hagaaji wixii kale waa kan waxaasaanu samaysanay idinku xaafad wixiina ula taga si la idinku hagaajiyo laakiin haddaad tidhaahdaan waxaad qabatayna waa ka hor imanayna waxna kuu soo sheeg kulana shaqayn mayno mid hore iyo mid dambe iyo mid soo socdaba saasaa ku noqonaysaa labadan daamood aad la wareerteen dhalinyarada ka daaya sunta dhalinyaroy ilaa ma xanuunsanaysaane wixii wanaagsan waa aragtaan raacina dadka dee aad markaa idin habaabinaya anigu waan ka soo horjeeda waxa weligiina meel gaari maysaan weligiina cadow iska cilmaysaan weligiina nin kale oo la tartami karaysaan ma jirto run baan idin sheegayaa intaa labadaa daamood tihiin ninna la tartami kari maysaan waayo kale hadduu wax doonayo wanaag doonayo ka kala ku kacsan kale hadduu doonayo ka kala daba ka wareegayo waynu isdhaqaana Soomaali baynu nahay waynu isgaranaynaa marka in maadeerayaan wax wada qabsigu waa aad buu muhiim u yahay wax wada qabsiga gobolku aad buu muhiim u yahay gobolka kaliya ee faa'iida waa gobolka dadkiisu isku duuban yahay ee dawladda wax ka wada doono kaasi ma faa'idi kara laakiin inta tihiin hebel ana hebel ka ciidee hebel dhaqaaqin hebel waxba u qaban intaad leedihiin wallahi meel ma gaadhisan waa inaa sanduuq samaysataan waa inaa guddi samaysataan labadiina dhinacba ah ilaa cid kale idinlama joogtay idinkuma meesha boota ku waalay inta idinla degtayba guddi sax ah oo wadaada ah oo islaama wadaadadan ixtiyaadi aamin maysa dartee والله عندنا آمن ورهد آمن كيبا كدنت دالك آمن كيبا بدنت هبا دد انت إلهي كي أبصد دورتان أما حافظ با قف وحل سارة أما شاب وحل سارة أو إلا هذا وني أنا هي بالبان حكومية وكل سكر هي بحال دي وسكر هي بيل ما يركنا داي وارين اللي يراه استقروا حل هاي ما ير waxku amaanayo wax ku maagayo wala kaanu dadkana qofka hadii aad wax ku qaban ma jeceliin wax iska ka dul saaro xaq darro ah ma wanaagsana xaq darrada iyo dulmigu waa halka ina gaarsiiyay qof aanan aqoon inaan iska maago qof aanan aqoon inaan iska caayo qof aanan aqoon inaan waxaan doono ka sheego waa wax halka ina gaarsiiyay ee Soomaali halka dhiga weey amal kale ma hayno
dadku ma yaqaano maxaa qabtaa maxaa ay banaan xitaa kuwa qurba joogta waxaan ku meeraysana intii aanu kala dhimaan laga joognaa markaa anigu aqoonna kuma lihi dadku amaanayana waan arkay dad kule waa qabyaaladaystana waan arkay laakiin waxaan ku leeyahay dhalinyaraa tahay nin sumcad iyo sharaf sugaya baa tahay sumcadaada iyo sharaftaada adigoo lagu jecel yahay burco ku jeceshahay kursigaa ka dig ninna ha maqlin ninku soo yiraahdo ku soo shidaaliyo ku waxa sameeyna ha maqlin maskaxdaada ku soco qofku wuxuu faa'iidaa markuu maskaxdiisa ku socdo la tasho waa yeelka haddaad cid la tashanaysid waa yeelka xaafadda guddi ka dhigo 4 oday 5 oday 6 oday 7 oday inta aad awoodid oo dhinac walba ah u yeedho maalinta doonaysid inaad wax qabato ma yar ahaan wax u qabato ha ku raacaan dhalinyarada ka hayso ayaan idin kula talinaha ha dhalinyaroobin yaa ninku oran inaga celi hebel iyo hebel ka bax badda ka bax haddaad sharaftaada iyo mustaqbalina yar mustaqbal la tahay yar siyaasiya baa tahay bari ka maalin dhalinyarada aanu sugayno inaad madaxweynayaal noqotaan baa tihiin qabyaalada iska daayay walaa ka cabsada miyaynaan gaboobaynba miyaynaan waynu daalay qabyaalad waynu ka daalay wallahi soo what hayr baynu ka nahay baasha iska daaya in madeeraya waxba inooma tarayso qabri ka celin mayso god kula geli mayso qof waliba bal maanta baaho inaad arkaayo xoolo haysta u tag inaad waxay siidee ku siin maayo maxaa ugu qabyaaladana markaa balka siyaasiga tolka tiin u tag waxa ku tahay shaqaysi ma hayo ma kornaya way bad ugu dagaalay markaa way buu umada kugu diraya waxa laga yaabaa ka kale inuu shaqo ku siiyo aad shaqaysi oo ka kale ku siiyo baa dhici karta iska day qabyaalada oo dadka ka day qabyaalada oo dadkiina maamulayo si wanaagsan dadka u maamula oo dadkiina shacabka oo si wanaagsan shacab dadkiina u dhageysta nimanka idin maamula oo ha ka horiba ilaa haddaynu wada siyaasi noqono oo wada shaqaale noqono oo dadku waynu wareeraynaa warberigii hore dadku wuxuu ahaa dhakhtar buu lahaa dhakhtarku dawooyinkiisa iyo caafimaadkaasaasu ku ekaa warreer miyi baynu ahayno miyigaas iyo adhigiisa iyo geeliisa ninkaas ku ekaa siyaasad wax kama ogeyn war waxaynu ahayn muxuu ahaa macallin ardaydiisa uu qalinka u qaaday waxa war hadda everyone waa siyaasi everyone wixii ma ku soo kaco maxaa la lahaa madaxweynaha muxuu yiri wallahi billahi ninka ya hadda waxan ba systemkan iyo meesha la isla marayo iyo madaxweynaha uu qabanayo wasiirkan wuxuu qabanayo waxba garanayno aynu marka hadaynu wada siyaasi noqonana waa problem hadaynu wax ku wada sheegno waa problem waar ma agtayno dhiga reer burco wadanka idinka haga wax la berigi ingiriiska baa la burco siyaasadda ku tijaabin jiray ingiriisku hadday burco ka socoto oo burco dalkooda waa ku socon jirtay hadday burco ka socon weydana wuu joojin jiray baa leeyahay because xaqiiqiyan burco waxa ka soo baxay halyeeyo ayay lahaayeen ilaa iyo yaraantoodii ilaa inta 5 qof ahaayeen maanta idinkii ugu liitaba dadka desareeyo hoose hore loo yiri marka in maada riyaalo bilaa caleeg anigu garan maayo raabtiga rabto hore siyaas ku heshiinayaan ma garanayo horta runtii laakiin nabadiina iyo wax wada qabsigiina iyo gobolkiina ka wada shaqeeyo oo wax wada qabsiga gobolku ha idin ahaado wax ah heer idin xidha ka samaysta odayada salaadiinta ah iyo waayelkan waxaan leeyahay dadku dhalinyaro weeye dhalinyarada waa inay wacyigelin u samaysaan waa inaydnaan idinkuna ilaalisaan dadka oo aad wacyigelin u samaysaan hadal badan iyo anigii baa isla yaabay waan daalayba waryaaraheen war weyn salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin noolaadan leedahay guuleysta insha allah khayr sanadka dambe wadankaasoo itiraaf helay xisbiyadii iyo waxaana iska badaynaynaa baynu marka walaalayaalow oo in madaxyaalow oo talo oo Somaliland aynu ka wada shaqeysano wadankeena iyo wax qabadkiisa dadka qurba joogta waa maagtaan waxa taa qurba joogtaana waa laakiin qurba joogta waa wadanka idin la haysa dhaamidin qotay beedin yara daba joogta marka dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh